sirdoonka Puntland iyo sirdoonka Jabhadda Argagixisada Sanab inay wada shaqeeyaan accessna waxa way u yeeshaan xogaha sirdoonka ay Khaatumo in ay dhisaan musharax doorasho soo socota meesha la dhaafiyo madaxweyne Cabdiqaadir Axmed Abu Cali Fariye isaaq tu soo duulay dhulkan carab u baahanta qabsaday ma jirin horta heshiiskaas waa heshiiska lagu wareejiyay laakiin isaaq tu soo duulay carab u baahanta qabsaday ma jirto taariikhda yaa la khaldin Puntland ba isaaq ama Jabhadda Argagixisada Sanab ku wareejisay dhulkan 12 sano ayaa dhulkaas maqnaa dastuurkan ay leeyihiin caliyada ay leeyihiin waa ku qoran yahay reer SSC Khaatumo ama mismisha loo baahan qayb ka اسنا مركي اي بوعه ما تجيسي مركي تقرا dhaftay garow dushay u socotay marka dastuurka bada ma jirin miya sooliye sanaaga iyo tog dheer kuma qoran miya gaalan la yiraahdo ilaahay baan ku dhaartay reelada waca waligi ma shaqo tagin kii ugu horeeyay ee horgala oo isagoo intuu sirrimays waayay adiga garow raacay wallahi 3 sano raacay bal 3 sano dhaqanka naagaha jirkooda ka galacsado leeyahay لو تورني بالله هوشن هذا تكون هولان تاعي إلا نستح حرق نستح بان أمك عابا يا دول كت حوالي عين بان براسة بقول لك بدلان حقتها ولا صعنا هدي بدبوده وأتكلم بيسي حال حد معي أنا أقول قصة الدكتور أنا كشكانا يا سلامتي الدكتور قصة اللي أنا كشكانا يا حرقل أنا إيده يا حرقل ولا ماشي أمريكا كل إنسان وشقين تري ما أنت ساعة يا كذا بشدة حتى وحوي شرف درا كله هل كان جالسي واتهاي بسم الله السلام عليكم ما هو السلام يا أمد هل كان كحران شنال كان عباس مدني سيشر قراية مقالك ميل لركتورة لما قضب بنعاوة برامج كفاقي دونا أريد كواد وكورن كي نحمري الرأ يدني كون نحمري مقالة نيروبي أفر قضب الوجه الشيء أفر تقضبنا ويدي فاقي دونا إن شاء الله تعالى قضب كلابات وعاركي هرقل إنا عيديد ولا سكر يستاهل وحوي ودتك لو شقيستوي هرجلada gaarsi oo waliba daaqadaha ugu rido WhatsApp ugu rido aniga magacayga waxa la yiraahdaa horgal u leeyahay la yiraahdaa halista ugu weyn dadka reer Khaatumo leeyahay waa horgal weey gaarsi caaw wax badan ay ugu noo ogaanaysan insha Allah taala waa tahay ugu horeen qodobka koowaad waxa magaalada Nairobi ku kulmay Dani iyo Cabdiraxmaan Ciro kulankaasi dadku way naawleeyeen xog badan ma ka raadiyay dhaysto dhaga fura dad waxa la xalay ba ku kula ku dhacay habeen hore ku dhacay ma dhicin sodonkii bishii la soo dhaafay ee May ayuu horta kulan u dhaxeeya Cabdiraxmaan Ciro iyo Saciid Cabdilaahi Dani oo Nairobi ka dhacay kulankaasi kulan qarsoodi ah ayuu ahaa dad badan kamaysan warqabin anagu laakiin xogta waa helay halkaas way is arkeen dhowr saacadood fadhiyeen afar qodob baan lagu heshiiyay horta qodobka koowaad waa in Xasan Sheekh Maxamuud mucaaradisa laga midaysan yahay oo ay ridaan oo ay la diriraan oo xildhibaanada isaaq ee 22 kaana lagu buushkareeyo doorashada 2026 soo socota in Xasan ka codayaan Xasan meesha la dhaafiyo horta qodobka waa qodob arinta waxaan kala shaqeynay dowladda Soomaaliyeed ma rabaa inay ogaato ninka la yiraahdo Jibriil xogta waxa cusub weeye safiirkii Soomaaliyeed wadanka Kenya u fadhiyay baa kala shaqeynayay oo isaguna Kanada musharaxa xogtaas dad badan ma hayaan malmeena laakiin gaarsi ninka uu ogolaaday in away hadii la kuurayay ay xafiiska furtaan accessna ay u yeeshaan inay William Ruto tagaan oo sawir ku galaan aduu ay waxa dowladdu ku sameeyaan Nairobi ninka kala shaqeynayay waa Jibriil waa safiirkii Soomaaliya la doonayay inuu waxa ka hortago waana si dowladda Soomaaliya ixtiraaysan xogta hayna oo aysan waxba ka ogeyn horta qodobka weeye qodobka labaad in dowlad goboleedka SSC Khaatumo ee ka hana qaaday dhulka baaxadda weyn ee Sool Sanaag iyo tog dheer in la majxaabiyo oo la diriro ملفكاس كادير كوين الرئو مانتا وكيلك اوغا اللوديبي سيد عبد الله الدنوي waxaa lagu heshiiyay Saciid Cabdilaahi Dani in madaxweynaha loo dhiso 2026 xildhibaanada 22 ka isaaqaana ay u codeeyaan hada fiiri taa wuxuu ku bedeshay in Khaatumo lala diiro Khaatumo la majxaabiyo waxay kale islaaf garteen oo islaaf garteen Puntland iyo Jabhadda Argagixisada Khawaarijta SNM wax maamul oo u dhaxayn kara inaan jirin wixii u dhaxaynaa la diriraan waa yaaway SSC Khaatumo
qodobkaas waxaa kaloo ku lamaanan in sirdoonka Puntland iyo sirdoonka jabhadda argagixisada sarab inay wada shaqeeyaan accessna waxa way u yeeshaan xogaha sirdoonka ay qaatmo saanadooda ciidankooda waxa la soo dagayaan in intaba la ogaado oo sirdoonka Puntland iyo SNM ay ka wada shaqeeyaan waxaa kaloo qodobka ku lamaanan in cashuurta la kordhiyo dekada Boosaaso oo haddii dagaal dhaco kale waxa way lagu dalaco qodobkaas waa qodobka labaad weeye qodobka saddexaad in ay dhisaan musharax doorasho soo socota meesha la dhaafiyo madaxweyne Cabdiqaadir Axmed Abu Cali Fariye madaxweynaha dowlad goboleedka si qaatmo qodobkaana way isla meel dhigeeno ninka ay marayaan ama soo dhax marayaan ma aha nin la yaqaan way waa nin cusub oo soo bixi daro way laakiin xogta waa ku daba jiraa wali ninka kaarka soo saaran doona cusub waxay rabaan ninkaas inuu ka shaqeeyo damacooda inuu ka shaqeeyo imaaraad baan qaal ku bixinaya taana waa qodob way qodobka ugu dambeeya warsangali waxay sheegeen oo ku heshiiyeen in Ergaabo warsangali shacbiga iyo warsangali lagu celiyo in badan wixii halkan ka xiga Ergaabana ay tahay irinu madaxweyne u yahay jabhadda khawaarij argagixisada sanamina ka tirsan tahay wixii badan dhanka waxa way kala ka xigana inay tahay Puntland oo sida Cabdullaahi Dano madaxweyne u yahay in yani warsangali lukiisi la kala qaybsaday waxa la sheegay halkii qoyska warsangali lagu celinayay meesha la yiraahdo waa sida cirraydan ku heshiiyeen $2500 la siiyo halkii fardi weey ee kula abay Ergaabo waxa kaloo qodobka kula dhan in la kala reebo laga dhax shaqeeyo warsangali u baahantay sidna meel isu raacin maalin waxa dhacday waxa isku dayeen 60 nin bay rabeen u baahantay warsangali abaabulaan Ergaabo la geeyo min $200 waxa way la siiyo halkaan ay ka dhawaaqaan inay dalku nabad yahay Ergaabana sidoo hal tahay arintaasi waa u suurtagal weeyday waana ay hadii la kuuran yahay waa fashilantay horta kulanka intaas ugu muhiimsan waxa la bahalaha la yiri waxana isku biiriso afqanumuna kuma kala tagto dani iyo erro khaatumo ay yeeli karaan ma jirto dani wuxuu ka shaqeynaya weeye oo kursiga u dhaafsanay maaha kaligi maaha ragii ka horeeyay Puntland soo hogaamiyay baa kursi xamar dhaafsaday dhulka ay si khaatumo waqtigii maaha dadkuna dadkii maaha isleeyahay malaaxo ma jeerteen dhulbaanta hayslaayaan bisley laakiin ma jeerteen dhulbaanta islaayeen maayaan waa talweey adigaas sibaara Puntland aan ka qabananaa Puntland adaan ka badbaadana kaan qaban doono inaan Puntland maanta gacanta ka qabano cid maanta kaaga futuxona ma jirto meesha doonti gaad cid ka tirsan maanta daniyo ma jirto wallahi wali khaatuma talaabo qaadin hal talaabo haday qaadon ogahay barda kale ugu dhufanaya sida doona boqoro sida moqt taas garaado khaatuma dhulka dhiga cid kaaga futuxona ma jirto xamarna waa inoo balan weeye hadii aad xamar madaxweyne Soomaaliya ka noqotid garkaas naag ba ka soo baxay xaqay weey bal isaaq dheer takaysa haysto waxna ku siiyaan bal madaxweynaha ka dhigan anyway ninka isaaq la shaqeysanayo ee la soo heshiiyay ee horgalka ee maanta harti leeyahay ee dibindaabiye daarooyi mid harti ka shaqeynaya mid wadani weey madaxweynaha horgalka waa garanayna waa karbaashana isaga ina ciidiidi faraton iyo dani maxay kala duwan faraton waa anjasi u jooga Hargeysa danina waa anjasi u jooga Ciro Garowe waxba kala duwana waxaan leeyahay futadaad ka tiraadeen adiga iyo odaga yare hadii la kula cusbada laga ilaaway bal Ciro fiirsada cusbada laga ilaaway soo soconaya fiiriye labadiinaba futadaad ka tiraadeen mulaaxo iyo odaga yare cusbada laga ilaaway Ciro halkaas ka tagaya qodobka labaad horgal in ay diid baan hadlay Maxamed Aydiin gaarsiye waa nasiib darro dadkii horta loo profilka ahaa in nolosha ka dhacay ee waxa weeye hadii la kuurayahay ariga ka raac jiray Hargeysa meesha la Garowe in sidii microphone maado balaga soo hadlo horta mid ogaada heshiiskii Ciro iyo dani hadda idin sheegay automatically maanta waxa weeye fuliyay waxa maanta leh dastuurka Puntland ka mid yahay si qaatimo inta idin sheegay dastuurka Puntland أساسي خاتم dadkeeda qayb kama ahayn meel waxa weey hadii la kureeyo waxa ay tala ka geystay ma jirto sababta way 2012 baa la sameeyay deegaankana cadowga Puntland waxay ku wareejisay 2007 jabhada argagixisada dadku inay taa fahmaan weeyii isaaq tu soo duulay dhulkan carab u baahan qabsaday ma jirin nidaam system daahir ah la hogaaminayay oo jabhada khawaarijta argagixisada sanamaha
ayaa Puntland kala wareegtay Puntland bana ku wareegsay waxaana lagu aaday wuxuu ahaa heshiis Cabdullaahi Yuusuf iyo TPLF iyo riyaal ay gaareen in federaalka la geeyo sida waxa weeye marka federaalka la geeyana isaguna dhulkan maadaama aan la lagu waxa weeye lagu eedan jiray in hadii ay bees u yihiin in lagu wareegshay Isaaq waxa weeye jabada argagaxada salaam horta heshiiskaas waa heshiiska lagu wareegshay laakiin Isaaq intuu soo duulay carruur baahanta qabsaday ma jirto qalin baahanta lagu qabsaday ma jireen Puntland bay baahanta waaga ahaayeen 2007 taa ogaada taariikhda yaa la khaldin Puntland ba Isaaq ama jabada argagaxada salaam ku wareegshay dhulkan waayo 17 sano ayaa dhulkaas maqnaa dastuurkan ay leeyihiin caliyada ay leeyihiin waa ku qoran yahay reer SSC Khatum ama mismisha loo baahan qayb ka sana markii ay boocama tagisay markii tukarad dhaaftay garow dushay u socotay marka dastuurka Puntland ma jirin miya Soomaaliya sanaag iyo togdheer kuma qoran miya hadii la ku reeyay dastuurka Puntland 17 sano ee gobol fooloodo ay ka dhacayeen dhulka SSC Khatum marka dastuurka Puntland kuma jirin miya markii dadka ay tashadeen ay dagaalameen ay waxa weeye hilbadireen ay xarb akbar galeen ay door iyo khawaarijta ka adkaadeen markaas dastuurka Puntland waxa weeye hadii la ku reeyay qeysii Khatum dastuurka Puntland lagu qoro horgal in ay diid waa laga dhaxalnaya dani bana ka dhaxalnaya in ay diid baa ka warramay hadaba in ay dadku ma yaqaanaan magaalada London la yiraahdo ilaahay baan ku dhaartay reer London waca ولي ما شقتين باغمودوها ضرب ابوها عيدو قاينتري سيده سلامها ما تقانا عرملada moogtay buucayda qaayintri siido sagacada ayuha waxa hadla qanta ku haya codadkiisi uu wasaabay markuu Puntland intuu wasiirka ka noqon uu Puntland ku caayisay ma jartay ku caayisay man haya waana soo bandhigaya wallah dhaqaalaha ku bixiyay midna idin sheegay ninkani garow markii wasiirnimada xiligi faro la waayay baasaboorka ka dhacay markii baasaboorka ka dhacay باغمود نقد نيكي ugu horeeyay horgala oo isagoo intuu wasiirnimays waayay ariga garow raacay wallahi 3 sano raacay bal 3 sano buu ariga garow raacay qofka noocaas way duhurkii aroorti galin karo daaqsan jiray dhulka dooxooyinka ama liglay dhulkaas buu daaqsan jiray dhaqanka naagaha jirkooda ka galacsado leeyahay warbays weydiiseen nin la kareysanayo marka war la kareysanayo dadkiisa iyo masiirkiisa iyo dhulkiisa ay dowladdiisa ay هاي الناس اللي لا مركي لا عادي يدخسد ولا يسوي يدخسد منو يدي شيء كا ترى ولا قحرة قولي بتوس كده جاي اسكلق ما قاعد كده ولا قويش كده مركب بحواي ما حبس قال لي ما قاعد حبس قال لي أيوة يسوي دريس هروب هاي حبسيدا بوندلاند قفك محبوس قال لي قحرة درس بار جرى لوحده ما wax la keenay hada fiiri soo wasiir Puntland soo wada fiiri horgaladu sharaf lahayn badii sheegayay adii fiiri godobka isticmaal Soomaa godobku inta uu shaqeynayay buu baswi ma kaaga dhamaysto waa la tuuraa ka tasuha jeelkii intii laga saaray isagoo dareeskii huruuda wata ee maxbuuska baa laga maxkamadda sare warkareed ma bixinaysa markaas diinta iyo ilaaha iyo dadka kula haway qofka noocaas darab abka nolosha ka dhacay ما قف لي تمويان قف كلا ما كحيسان نظام كان Puntland يستري نكسب Puntland هو كان كوسو قبته الله يهدبا reer SSC Khatum dhulkooda waa ilaashanay dawladnimadooda waa ilaashanayaan cid wax ka qaban kartana ma jirto horgal la isaga filan wallahi billahi tallahi horgal iskaga filan kuwii isaaq u shaqeyn jiray iyo halka marina wada ogtahay adigu macalada la waado firi ah oo wax bayr ah oo garow ay tan saacad ma jirtaa ciidanka xasilinta tan dalma garow ku nimaanaan cid jamaahiirta iyo qalasyada ciidamada militariga cid ka difaacaysa kaadar waxa way sibaariga ay ku adeegsanay xitaa nima ka difaaci karo dibdug waliba hadda 5% xoga bandiyay wallahi 9 kale dabagal baa kugu sameey xogtaada gacanta ku hay wax been waliba la haray mar dib hadan Khaatumo iyo arrimaheeda laga maqlo iska jir laga soo ramid baan leeyahay hawshan hadda aad ku hawlan tahay ee nasteex horgal nasteex baan u magacaabaya gobolka waxa way cayn baan marasa lagu dhigay Puntland xogta wala soconaa haday dhabowdo oo aad ka dhabaysid hal harimaaya anigu ogow qisadii dhukuraana ka shaqeynaya islaantii dhukuro qisadii ma ka shaqeynaya isagana inta u dhaaf maayo waxaan ku soo gabagabeynayaa
ujeedka Puntland nimanka midda daabkooda u hayay dadka reer AC Khaatuma ay rabaan ka dhigtaan waa in dhulkooda curaar loo bixiyo isaga lagu wareejiyo xamar kursi wax way hadii la kureeyay ay uga doontaan ciidaas 17 sano ku shaqeynayay isaaqna dhulkeena ee gacmaha inoo haysana iyaga haayeen waxay rabaan magaranaysan ciyaalka wad garanaysan ciyaalka markay yareeyeen way batagaan marada baalka loogu xuraa waxa ay ma tag tirtira la yiraahdaa wallahi taas ay la doonayaan wallahi ma tag tirtira la doonayaan laakiinse way la tahay way la tahay ma soo noqonayso dadkaasi waa tashadeen waxa uu ka shaqeynay dimidaabiye oo qabaayil majeerteen ilbaantii ay isku diray ma jirto majeerteen ilbaanta waa tuu brothers weey ma isku dhacayaan daniisa sibaari kooxdiisa baan Puntland ka badbaadayna insha Allah taala horgal dambe oo ka hadlay arinta Khaatuma ee garow joogan daan maqla Soomaha halkan iska daawanaya gacantan waliba hadal kaliya ma ana wala ga jawaabaya intaas ku soo gabagabeynaya horgal aniga ii daayay horgal wala meesha mariyay ku isa u shaqeyn jiray maanta saa way kaaleen bulshada xitaa waxa way ku sharaf darro ku nool halkana gaarsiiyay ballan waxa ku qaad ballan kuwa u shaqeeya Puntland iyo dani sibaarna mulaaxo nolosha nolol ku xuneeyad inaad gashaan ballan intaas ku soo gabagabeynaya soo shar gareeyay insha Allah taala muuqaalkan